السلام عليكم أصحابتي qaaliga waa idin wada salaam meel kasta aad ka joogtaan walaalay qurux badan soo dhawaada insha Allah soo arkaysaa muuqaalkeen wuxuu ku bilowday anigoo hilib shishiid kadib kusoo saartay saak muuqaalkan wuxuu anfici doonaa hooyooyinka caruurta yar haysta ama jecel caruurtooda inay siistaan cunto yar maasha Allah tabaarakallah kaaliska arag ma jecesha hooyo inaad caruurta cuntada kaligood ay ku cunaan ma jecesha caruurta inay ku cunaan cunto yar qoyan oo kaaliska arag baasta lisaanya ayaa maanta ku wada insha Allah si yar oo fudud oo ku samaysan karto ee caruurtana ay ka helayaan oo aad iyo aad u jilcan saa arkaysaa marka waxaan soo saartay digsigeeni kadibna waxa waa hilib shishiidkii ayaan dabka soo saaray hilib shishiidka wax saliid ah kuma aanan soo darin biyana kuma aanan darin hilibkii markii uu inoo soo shiilmo oo biyihii ka soo baxay oo aan shiilay saa arkaysaan kadib waxaan ku soo daray wax yar oo saliid ah kadibna intaas ayaan si fiican iskugu soo shiili doonaa waayo waxa keenaysa waxa marka hore hilibkii oo biyo leh hadii aan dhaho saliid ayaan ku darayaa ma fiicno laakiin waxaan sameeyay hilibkii biyaha waa ka qalajiyay kadib ayaan saliid ku shubay halkan waxaan ku soo jarjartay basal iyo toon ayaan soo hoolay intaas ayaan si fiican isku soo dhexgelinaa ilaa iyo ay ka soo noqoto kasoo dumato kaaliska arig hilibka oo soo noqdo soo carfo lagama sheekay kardo inaba caadi maaha qofkii cuna ayaa ka sheekeyn doona insha Allah baasta lisaayadu wuxuu ku fiican tahay baasta qoyan oo kaaliska arag ayaa noqonaysaa caruurtana dib kuma qabi doona insha Allah dhaqliqisteeda soo qasama baastada balbalaarka inaa isticmaashid hadii aad haysato baasta macaroni oo kaleeto ama baastada frimbiga oo macaroni frimbiga u naqaano iyadana sidoo kaleeto lisaay ahaan camal waa ugu sameyn kartaa maaha qasab inaad yani baasta ala baastada haysato ayaad ka sameyn doontaa insha Allah laakiin suugadu waa inay noqoto suugo badan oo kaaliska arag si ay raashinkaaga u noqdo raashin qoyaan fara badan leh oo aan said u qalalin oo kaleeto ofiga markaad geliso hadda waxa ku soo daray xabad maraq digaag ayaan ku soo daray hilibkii maraq digaagii toontii iyo intaas baa isku soo shiilaa maasha Allah tabaarakallah hilibka asaga wuxuu soo noqday hada gaduud kaaliska arag waan soo dubay waxa dabka ugu soo ranaaday maasha Allah lagama shaki karo waxaan soo qaatay yaanyo ayaan soo qaatay ama xabuub qof kasta oo yaqaano hal gasac hadii ay haysato mid kaleeto caadiga ah waa soo shiidan kartaa wax dhibac ma lahan yaanyadii markii wax yar oo biyo ayaan ku soo daray kadibna waxaan ku soo daray 2 qaando oo yaanyo shishiid yaanyo shishiid waxay ka caawinaysaa waxay tahay suugada inay ku noqoto suugo gaduudan oo kaaliska arag oo xoogaa yar adag marka si fiican isku soo dhexgelinaa insha Allah marka wax yar cusbo ayaan ku soo darsan doonaa maraq digaag waa ku soo darsanay wax inaga maqan ma jirto maadaama aan caruur siitana mideeda kale waxaan idin sheegaa waxay tahay caruurta uma fiicin xawaashida badan ha laga ilaaliyo insha Allah sida xawaashiga duduubka xawaashida kaleeto waxa fiican markasta cuntada inaad ku yareyso cusbadan sidoo kale cuntada inaad ku yareyso waa kaliyaha iyo kadileysa caruurta markii aan suugada guduudneed geeskaas ayaan iska soo dhigay oo waxaan dhahay ii kaadi marka halkan waxaan ku sameeyay doonaa insha Allah sooska cad qof kasta sidii ayuu u sameystaa ana sida ugu fudud oo ku sameystaa ayaan ku sheegi doonaa insha Allah soo dhawaada 100 gram oo subag ay halkaas ku soo ritay kadibna waxaan ku soo darsaday qaandada cuntada lagu cuno ee raashinka caadiga oo bur ayaan ku soo darsaday burka iyo subaga ayaan si fiican isku soo dhexgali doonaa waa isla arki doonaa muuqaalkan waxa waaye hadii aad tahay hooyo caruurteed ay yar yihiin aad iyo aad ay ku anfici doonaa insha Allah baastadana aad iyo aad ay caruurta uga helaan waa nabad ognahay bariiska inta badan kama helaan bariiska dadka waaweyn ayaa ka helaan marka waxaan soo qaatay caagadaas yar ee arkaysaan oo xurbinta camal oo soo qaatay xurbinna ma aha insha Allah laakiin waxay ka caawinaysaa caagadaas u samaysan qorigaas inuu soo burkaaga noqon bur oo yani burburka yeeshto muhiim waay inaad iska ilaaliso suugadan cad markaad sameynayso inuu burturka noqdo caanaha marka waxa ugu darsanaysaa kaskasiir ayaa ugu darsanaysaa laakiin maalin ka dambaysa markaad barato yani sameyskeeda waa la qabsanaysaa hadarta caanaha wax badan ayaa ku darsan kartaa laakiin aan waxaan ku tali lahay insha Allah dabka gaabto kadibna ku darso caanaha kasba mar yar ku darso halkan waxaan ku soo daray oo kaleeto wax yar oo filfil iyo wax yariis oo basbaaska shiidan camal laakiin qasab ma aha inaad ku darsato insha Allah laakiin aan ahaanteed waxaan ka rabay wax yar oo dhadhan meel dheer camal in ay yeelato kadib markii intaas ay soo dhexgeliyay waxaan kale ku soo daray wax yar oo cusbo ayaan ku soo darsaday filfish hadaadan jeclayn waa ka tagin kartaa daaradna ku darsan kartaa qasab ma aha markii aan suugadii aan soo kareyna waa tan kaaliska arag soo noqdo maasha Allah tabaarakallah lagama sheekan karo
so familkaagii adiga iyo intaad karsanayso ayay ku xiran tahay. aniga suugadeeda intaas ayay ka koobantahay, suuga cad oo kaaliska arag mideeda kale waxaan ku sheegi doonaa guriga inaad ku samaysta ayaa fiican. suuqana waa lagu iibiyaa iyadoo diyaarsan, laakiin waxaa kaaga fiican oo kaaga fudud waxay tahay inaad guriga ku samaysto. insha allah aad iyo aad ay u fududaas arkaysaan. inta sirta ayaan ku darsaday. caanaha gadaal ayaan kaga soo daraa waxay hayaan caanaha whip creamka ama adag. marka hore waxaan ku kariyay caanaha caadiga ayaan ku kariyay, laakiin gadaal dambe waxaan kaga daray whip cream ayaan kaga daray ama caanaha fadhiya ee caadiga oo lagu daro cuntada. intaa markaa soo dhexgeliyay marba marka ka dambayso maraqaaga cad xoogaa wuu soo yara adkaanaa. dabkana muhiimada waxaa waa meel dhexaad inaad ku karsato. suugadii cadda halkaas ayaan uga soo baxay. haddana suugadii gaduudneed oo inoo bislaato kaaliska ariga hilib shiishiidkii ayaa halkan nooga soo baxay. markay xoogaa inoo soo karkarto ayaan haddana waxaan sameyn doonaa insha allah kabsar caleen aan soo jarjaray iyo barbarooniga cas ayaan kusoo darsaday. qudrad allaada qudrada aad jeceshahay ayaa ku darsan kartaa. qasab maaha qofkan wuxuu isticmaala inuu isticmaalo. haddaa rabto sukiin ayaa ku darsan kartaa, haddaa doonto baradha ayaa ku darsan kartaa. wuxuu ku xirantahay caruurtaada iyo waxay ka helaan iyo waxa adig ka heshay. insha allah muhiimada waxaa waaye inaan fahano caruurta waxay jecel yihiin, caruurta waxay ku cunayaan ayaa muhiimada tahay insha allah. soo marka wax yar oo cusbada xoogaa dhadhanka ayaa igula yaraaday, wax yar cusba ayaan kusoo darsaday. haddana suugadeeni waa inoo diyaar insha allah. dabool dhab ku sii. waxaan gudagali doonaa waxay tahay in aan baastada isku xirxirno oo aan diyaarino. halkan waxaan soo saartay dabka biyo ayaan soo saartay. sidan waa sameyn kartaa, laba option ayaa ku fudud. sidan waa sameyn kartaa oo waxaa ku fududaanaysa baastada inay noqoto baasta aad iyo aad u jilcan. waa aad iyo aad u jilcan marka xoogaa biyo karkara aad la soo dhigto kadibna aad isdul saarto. waayo baastada xoogaa waa yara jilcisaa, qalalka saaidka ayaa ka baaba'ayo. waxaa kaloo sameyn kartaa haddaad doontan biyo dabka lama saaraysid, baastada sidii ayaa dusha ka saaranaysa. suugada aad u badsanaysa insha allah. markasta waxaa muhiim ah suugadaada inay noqoto suuga badan oo kaaliska arag, inaysan kaa noqonin baasta qaleel suugadii hoos ayaan soo dhigay, qaybta hoose ayaan hadda saxan kusoo fidiyey. kadibna waxaan dul saarayaa baastadii midba mar mid kale insha allah. la socod wanaagsan. soo baastada waxaan sameeyey qaybtii hoose ayaan hadda kasoo dhamaaday oo aan suuga ayaan dusha kasii saaray. kadibna waxaan ku daray sooskii cadaay. haddana waxaan kusii daray usti ama cheese ama farmaajo qofka sida u garanaa insha allah. marka waxay ku fiicantaha baastadan kaaliska arag. ayada haddaan rabto inay ku noqoto baasta kaaliska arag oo dhidhiin waa ina farmaajada ugu ronataa ama ustiga ama cheeska insha allah. kadibna qaybtii labaad dabaqadii labaad ayaan soo saaraa. waxa waaye inaba caadi maaha, sidaa doonta ayaa ka samaysan kartaa. haddaa rabta dheer u saaro, haddaa rabta dhudhuub u saaro. soo aniga waxaan sameynaa laba qaybood ayaan sameyn doonaa. qaybtii kaleeto ugu dambeysa hadda waan soo saaray, meel kasta waan kasoo daaray. marka waxaan sameynaa suugadii wax aan ka tagay ma jirto. digsiga hal dhibic laguma reebaayo. suugada dhan dusha ayaan kasoo saari doonaa. digsiga dhan aan kusoo gudinaa saa arkaysaan. waxaa waaye lagama tagayaan taagana, ma fahanteen. waxaa waaye wixii maraq ahaa dhab kusoo sii dusha waa inaad saas uga muuqataa hilibka kaaliska arag. barbarooniga caruurtaada haddii aysan barbarooniga jecleenna waa ka diisan kartaa, haddii ay jecel yihiin waa ku darsan kartaa. qudaar allaala qudaarta rabta ayaa isticmaali kartaa. marka waxaan farmaajadii ayaan kusoo darsaday ama jiiskii korka dhan ayaan uga daadi doonaa. kadibna maraqay cadayaan dusha kaga sii shubi doonaa. kaaliska arag baasta aan laga hadli karin laga sheekeyn karin ayay kusoo bixi doontaa. waana iiga dacweyn doontaan haddii aad tijaabisaan. commentiga xaggiisana iigu soo qora insha allah. la soo wadaaga markii aad sameysaan. waxaan rajeynayaa dad badan oo ku dhib qabo oo sameynteeda inay u fududaan doonto. maanta maalin aanan ahayn oo u fududaan doonto. wax kasta oo isku day wax culeys la dhahay ma jirto, ma fahanteen. soo suugadii waxaan sameeyey jeg ayaan siiyey, hawada ayaan kasoo saaray. waayo waxaan diidaa farmaajada kaligeed haddii ay kor soo marto hadhow waxay noqonaysaa adayg ayay kaa noqonaysaa. ugu dambeynna waxaa waaye hadday nooga soo baxday ufinkeeni kaaliska arag gaduud ayay soo noqotay. ayada dhan kor ilaa hoos way soo bislaatay. inaba caadi maaha, ka sheekey sida kasoo baxday. wallaahi lagama sheekeyn kara carafta udgoonka, lagama sheekeyn kara. inaba caadi maaha. caruurteeda waxay u noqotay casho kaaliska arag waa idinla wadaagi doonaa insha allah. waayo waxyaabo fudud waxaa jira aada iyo aada caruurta uga fiican.
باصدي marka hadda waxa cashadii aan sugi laayay ma fahanteen waxa la tagay hooyo geesaha waxa waaye labada darfood la iga dhigay marada anaga xilliya jirtay inaan casheeno meesha lagu gaaro 6da waan casheena caruurta inta badan way casheeyaan si ay wax yar ugu nafisaan cuntada markay cunaan u dhadheelaan kadibna ay seexdaan baasada iyada dhan sidaas ay isku daba kaacaysaa kaaliska arag ayada dhan waxay noqotay maasha Allah tabaarakallah hilibka ku jira kaaga daran qudaarta naba caadi maaha oo uga soo wax laga tagay ma jirta taagana qaybtii aan u jaray ayaan uga soo bixiyay marka waxaan sameeyaa gabadheeda yarta ay had guray waxaan sameyn doonaa insha Allah midida yarta iyo firgeeta ayaan soo qaadanaa anigu afka uma galgaliyo waxa ugu dambeysay af aan u galgaliyo markii 4 bilood iyo 6 bilood ay jirtay soo umaleynaa waxaan dhahaa ku baashaa cuntada adiga gacantaada ku ciilbax soo arkaysaa baastada waxaan sameynaa ayada dhan yar aan ka dhigi doonaa soo firgeetada iyo midida ugu jarjaraa kaal iska arag inaba caadi maaha waxaan idin rajeynayaa khayr iyo caafimaad muuqaalka xigo like share and comment insha Allah ma salaamo